dhammaan xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya aad iyo aad ayaan idin salaamayaa waxaanan idinkaga mahad celinayaa ajiibidii ama aqbalaadii wixii aan caawa idin wacay oo aan idinka codsaday inaan isu nimaado dib ma jiro dhibaato iyo balaayo iyo dareen midna idinma wacin wanaag iyo horumar iyo khayr baan waayahan oo dhanba yaan wadnay sida hadda caawaba halkan looga sii tilmaamay inaan ku sii soconno yaan isku aqli gelinaa isku waanina isna xasuusina caawana intay ka mid tahay baarlamaankiyo furmay ma aha baarlamaankiyo xirmayna ma aha waxaan rabaa barnaamijyadii dalka ka socday sida halkan looga sheegay 5 qaybood hadda ka horna baarlamaanka aan ka hor dhahay 5 muhiimadood ama hortabin ayaan lahayn 5tii saddexna waataan dhahno waa 3 caalamka noogaga xiran oo caalamku inuu nagu kaalmeeyo ama noo ogolaado ay ahaydo go'aankeeda kama dambaysta ah aanan annaga lahayn shaqo badan oo go'aankaas kama dambaysta ah keeni kartay inaan qabanno way ahayd waanan qabanay laakiin haddana go'aanka kama dambaysta ah annaga maanaan lahayn deen cafintii cunaqabatayntii maxaan ku yiraahdaa hubka iyo muxuu ahaay ku biiristii jamciyadda qurumaha ka dhaxayso ama East Africa Community intaba jamciyadda qurumaha ka dhaxaysana waa ogtiin Soomaaliya caalamkoo dhan 200 dawladood oo caalamka inta ah ee ku jirta xubnaha golaha jamciyadda qurumaha ka dhaxayso dhamma u codeysay Soomaaliya markaasii Soomaaliya ku guuleysatay caalamkoo dhamma u codeeyay ay la mid tahay East Africa sidoo kale 7 wadan oo annaga horteen xubno ka ahayd ayaa ayagana si unanimous ah oo wada jir ah oo aan hal dal oo nadiida aan ku jirin yaan noo codeysay oo nagu aqbashay cunaqabataynta hubka sidaas oo kale deyntii la cafinayay 5 bilyan oo dollar iyo jarjar sidaas oo kale waad garan kartaa marka hawshaasi in caalamka lagu qanciyo inay tallaabooyinka noocaas qaadaan ayadoon lagu kala harin ayadoon qaarna diidin qaarna ogolaanin waad garan kartaa macnaha ay leedahay laakiin taasi isagama imaan Soomaaliya weligeed way joogtay dawlado waan lahayn ama kuwa ku meel gaar ah ahaadeen ama kuwa ka dambeeyay ha ahaadeen kasii horna waan joognay caalamkuna waa joogay go'aanada noocaana meelaha lagu gaarana markasta waa inay furnaayeen madalada go'aanana waa lagu gaari jiray laakiin markaan in go'aanada noocaas caalamku uu noo gaaro waxa keenay shaqo la qabtay oo gudaha laga qabtay waxaan rabaa inaan caawa halkan ka sheego ammaanadii naloo dhiibay ilaa iyo caawa aan joognaahay si wada jir ah markaan uga hadlo si fiican ayaan u gudanay runtii waana waxa keenay in Soomaaliya markii la yiraahdo loo istaago in Soomaaliya markii la yiraahdo Soomaaliya maxay rabtaa la yiraahdo in Soomaaliya muxuu ahay la soo wada eego oo la yiraahdo muxuu ahay muraadan kalena caalamkuna arintaas waa sideedabana qaacidada dhabta waxay tahay caalamku dawlad nooma dhisi karo laakiin uu nasaacidi karaa inaan dawlad dhisano oo yeelano ayuu nagu saacidi karaa 34 sano la soo dhaafana caalamku waa nasaaciday waxa noo dhimanay waa wax aan karno annaan kasno oo aan dhameystiri karno aan dhameystirno عرب باران فدرال كامر كهره إن أنت تاس ووحي لسوق قبته ولا صوم مري شقفي عنا يحيي فعل كستا يقول كستو أضلاده سومالي محيكم ما يجرتي دق حمل دو كدعة دوقنا مال دير كلمة أترا ذا برلمان كأدو تاجن أترا إذا علىها صوت مساس لو وذ إيجيو السوشيال ميديا محنكر هذا تلفون قف كستو أساس وإيجيو وملايين صومالية يكون أجنبي وترجماني صومالي ما هذا زمان تمحشك تنتيرا جوجل انتجري ترجماني محوها إنجليش عربي لغات كستقويلية أي فهميات وحفي عن يافي عن مركب والله قف كان وقف معنا له فكر عضو قباء وضن كيسي ومديس وحقي الربان أيو كترجمة وكهضلية iyo warwaxani mid kale ummadaha adduunka waa la dirsaa ummadaha anagoo kala dagaalada sokeeye galo ka soo baxo dhan waa la dirsaa
ولا يقانا لقدة مركا يكو هدلان إن اللقدة كجدال علينيس عولاد يكو علينيس إن تاه هي اللقطة رؤو وديس أو نبدي كينيس إن تاه رسولك عليه الصلاة والسلام محود هاي هداد هد ليسو كلمة في عن وناقة وخير كهذا هدادن كهذلين أما أذن هاينين اسكا آمس لكن فدنا ونهكتها لين أنا بارمان كمركا إلهي هاد آد مسؤولية حلقسنمو وناك يا كم موضي واتي قدومي شعبان هدال كانوا كلها قعنت أنساس أتاقني أيا بليونز أوف دولار الصوماليا يا لوغا عفي أو لوغا حالها هدان قعما عشان لهين مالين تاس ما دعي لها وحبا ما أنت مركا وحانا لغا ربا سيدو كله قعنت أنساس أتاقن عد صوبان أو وحسو كردين يو آن دهنو أو في سيدة ذا بفكر بارلمانكو أفكار وكهلا آراء وكهلا وحبو جهيا وتوسيا هذه فكرة ماشي اللي صار دقيقة ميت كدوان أتقبته إنها تشاكت حقات أولادها أو ترى وركن كان كرون كان ما سان لو دغو لكن هدي دي اي نقطه maxaan ku yiraahday waxyaabaha qaarkood oo marar badan aan dhageen ku soo dhacayeen ama aan u jeednay waa laga fiican yahay waxaan rabaa marka dalka maanta meel xasaasi oo maraya dagaalkii al-shabaab ee 2 sano ka hor aan bilownay waa wadnaa waa socdaa maalin walba baarlamaanka sidoo kale waana ku bogaadinaya waan uga mahad celinaya dareenka ay u qabaan ciidamada qalabka sido oo markii la soo qaado ama la sheegaba ay u istaagaan ay u qayliyaan baryahan arkay budgetkii waxa ay marba ciidamada waxa loo koriyo la dhahayo laakiin walaalayaal suus meelu yaalo ka beegmay baarlamaanka laba waxyaabood dadka mudan ha loo roonaado xuquuqdooda ha la siiyo waxa roonaashaha loogu daro dow sax waay laakiin dhinaca kalena waxa bariya ka horeeyay cashuurta lama kordhi karo xagee la geynayaa cashuur maxaa loo qaadayaa xagee loo wadaa cashuurta yaa ka horeysay cashuurta yarta mishaarkaaga laga gooyo waay kista yarta gunada mishaarka aad qaadato iyo askarigaas aad sheegaysaa $200 waa ku yartaa loo kordhiyo aad leedahay wixii laga jaray waay waxa maxaan ku raaa wax lagu qabanayo hadii askari wax loo kordhinayo hadii macallin lagu qorayo iyo hadii meel kale lagu xalinayaba marka horta waxaan rabaa baarlamaanku inuu istaago dawladdu qofku marka uu dhiigga ku yaraado qofkan anemia haysa marka la yiraahdo jirro kasta waa ku dhacay waa dilay ama waa dhibay daciif ma ku noqdo waxa daciifayo difaaciisa jirka daciifayo jirro kasta ku dhacay hergaba waa ku dhaca waa la seexana caloosha wax yar waa la jiifana saasoo noqona waxa la mid ah dawladdu markay dhaqaale yar tahay mushkilo kasta caqabad ku ah oo aanay ka gudbi karin beesa markaanay haysan dawladdu ay wax ku kala xaliso oo dadka muxuu ay xuquuqda ay ku siiso oo ay ku abaal mariso oo maxaan ku raadaya wixii wanaagsan ay lagu sameeyo daciif ay noqonay cadowgeedu waa weeraraya kii cadowga adeegsanaya waa weeraraya kii maxaan ku raadayay laga xoogaa aqoon iyo xis iyo caqli iyo ogaal fiicnay waa weeraraya dawladdu marka way u baahan tahay waxaan rabaa baarlamaanka horta waa codkii dawladnimada waxaa la yiraahdaa waa repository of the sovereignty-ga dalka meesha ay degan tahay oo ay taalo waayaa la yiraahdaa baarlamaanka sovereignty marka la yiraahdo sovereign wax ka dhiman marka ma laha wax walba asay ku dhan yihiin waay wuxuuna asagu ogolaan gacanta u taagin soo ansixin haddii qof la dilaana qaanuun lagu dilaahay baarlamaanku ku yimid haddii mid la darajo iyo dalcaad iyo adduunyo loo sameynaa asagoo ka yimid haddii mid meel xil iyo mas-uuliyad qurux badan loo dhiibaayo asagoo ka yimid haddii mid dhammaan waxaan rabaa marka horta xilkaas waa saas dawladda shacabka soomaaliyeed waa idin dhegaysanaya waa ku maqlaya waa ku arkaya marka inaad codkii dawladda aad u noqoto oo aad tiraahdo maxaan ku yiraahdaa war dawladnimadeena ku dhisaan waa run dawladii meel ka soo joogto cilada waa iska jiraan mid cashuur la baxsada waa jira mid tuug oo wax yar xada inta ka xada waa jira mid maxaan ku raadaay hunguri darano dadka iyo wax dhaco oo wax duboobo oo jidka u istaag waa jira waa daciiftinimo anaga aan leenahay baarlamaanka marka waxaan caawarta kow number 1 ka codsanaya inuu dawladda cod u noqdo waxa soo haray baarlamaano
shaqadaadu goormay bilaabataa goormay dhammaataa shaqadaadu maalintii aad kutubka qur-aanka gacanta saartay ayay bilaabatay ood dhaaratay ood ku dhaaratay inaad dadka iyo dalka iyo diinta iyo dowladnimada aad ilaalinayso maalinta aad ku dhaaratay 4 da ayaa shaqadaadu bilaabatay goormay dhammaataa maalintaasay soo bilaabatay 2 sano iyo jarjar ka hor soo maaha goormay dhammaataa xilkaagii iyo xilligaagii markuu dhammaado oo kii ku bedeli lahaa uu yimaado maalintaasay dhammaataa inta ka horeyso kutubkii aad gacanta saarto waa ku daba taagan yahay mas-uuliyaddii aad qaaday weli waa ku daba taaganta waa saaran tahay so markaa de bini aadanaad tahay waa daalaysaa waa caajisaysaa waa xanuunsanaysaa muraado kaloo waaweyn oo deg deg oo maxaan ku ihahdaa mas-uuliyado kale ah ilan mas-uuliyado kalena waad xambaarsaa kusoo gelay waa run waa cududaar laakiin middaani waa midda aad muxuu ahaay aad qaaday qoyskaagu waa muhiim mujtamacuna qoysuu ka dhismaa laakiin qoyskaaga qoyska ma u dhaaranay wiil markuu noo dhasho ma u dhaaranaa gabari markay noo dhalato ma u dhaaranaa laakiin waa waajib diini oo muqadas oo na saaran oo si kale noo saaran kan laakiin 114 korka ka saartay gacantaada midigta adoo daahir ah oo weyse qaba marka hawl sahlan ma waxaan rabaa marka codsigayga formalka ah foloorka baarlamaanka la imaan doona annaga dalka difaacna waa loo taagan yahay oo wiilalaaba maalin walba u dhinto oo xildhibaanaa u dhintay oo wasiiraa u dhintay oo dad muhiimaha u dhintay waa loo taagan yahay waana soconayaa ilaa cadowga aan meel saaran dowlad laakiin dalka dowlad haddaanu yeelan taagan oo sharciyad leh oo sharcigeedu uu xoog badan yahay ma aha qof xoog badan ma aha sharci xoog badan iyo institutions hay-ado dowladeedoo xoog badan oo la dhowro oo maxaan ku rahaa la wada leeyahay la ixtiraamo oo laga baqo haddaanu dalku yeelanin dalkaasi markaa ma jiro mas 12 madax leh oo madaxba meel u socda midna xag u socda midna xag u socda ma socon karo meesha loogu imaanaa lagu dilayaa marka dambe dowlad iska wada dhinac yaacayso iska wada dhinac hadlayso iska wada yaac haddaan noqonana sidoo kale meesha halka madaxuu dowladdu leeyahay waa dowladda federaalka ah dowladda federaalka ahna madaxeeda waa baarlamaanka federaalka ah yaa ka maqan caawo jufooyin waa ka maqan yihiin laakiin qaybihii soomaaliya loo kala qaybiyey baarlamaanka kama maqna waa la wada joogaa soomaaliya waa ku dhan tahay meesha keliya la dhihi karo waa baarlamaanka xukuumadda laguma dhama ciidamada dadka ugu tiro badan xataa laguma dhama laakiin baarlamaanka waxaa la dhihi karaa waa lagu dhan yahay dadkana baarlamaanka matalo oy soo doorteen magacooda ku jooga waana baarlamaanka meesha dowladda laga dhiso walaalayaal dalka inuu dowlad yeeshaan rabnaa dalku inuu hor u socdaan rabnaa meeshanada ma joogi karno sunnada nolosha waxaa ka mid ah wax hadday dhashaan ama waa koraan ama waa dhintaan geed hadduu dhasho waa korayaa ama waa dhimanayaa cunug bini aadan ama xoolo ah hadduu dhasho waa koraya waa weynaanaya ama waa dhimanaya dowladnimaduna waa sidoo kale waa koray waa xoogaysanay waa weynaanay ama waa dhimanay labada unbay mid ahaanay meesheedii ma joogi karto hadda waa korow haynaa jamhuuriyadda saddexaad markii la aasaasay oo 2000 laga soo bilaabo waa koraynaa waa soconnaa laakiin runta markaan sheegno korriimadeennu way yar tahay hagaas yaa nugu jira korriimadeennu waa yar tahay cunug nafaqada ku yar tahay oo maxaan ku ihahday liicliicayaana waxaa kaloo rabaa waxyaabo badan oo nacabsi geliyaa jiro iyo kelmado badan iyo oraahyo badan oona hore usoo aragno maalintii carta la isugu tegaya ee jamhuuriyaddan saddexaad ee maanta 24 sano jirta lasoo aasaasayay dadaa diidanaa dadaa ka maqnaa dadaa muxuu ahay way guuldarrayso doontaa dhahay markii lasoo dhisay dadaa jallaafooyin badan u dhigay dadaa xagga ka dhacay dadkii dee intii hadda intoodii gashana waa dhinteen intii kalena waa nool yihiin markii dambena si un waa loo wada hadlay oo maalin walba uun sidii waa lagu soo wada qancay in badan oo ka midana dowladdiiba markii dambe lagu soo wada dhammaaday
marka bini aadan aan nahay siyaasad waa waxaan ka shaqeynaa siyaasadna ra'yina kala duwanaansho leeyahay eed lagu malaha laakiin ra'yiga inaan isku badnaano waayo waxa oo loo baahan yahay inaan ka dul qaada karo ra'yiga haddii layga badnaado inaan ra'yiga kala aqbali karo war haddaanan ra'yiga kala aqbali karin kaygana lama aqbali karo war haddaanan la xukumi karin anigana wax ma xukumi karo aniga waxaan wax xukumi karaa marka la xukumi karo مثلا مدشة قولها وتشجع قرن شركة هذا وحوها كي طبانات واي سجال هراء يمكن طبان شراء أسرون بدي طبان كاس شر ما هين إن أنتان استجعلان وحول بابا أن هيبة أنت أسل قادنين لكن محان استجر رأينا إنتان ورهبلو إنتان أديك واقع رأي بدنا نرع هيه أنت سامكسو كان مكو أدم أو كلا دون هاد من وقول لك kulanka daba noo dhiga aan soo noqon banaanka aan soo qancino sidaasaa lagu soo meel mariyay walaalayaal waxaan rabnaa mar walba ra'yiga dad ra'yi ka duwan qaba ama diidan ama aanay la qubanayn ha ku saxsanaadaan ama yaanay ku waa jira laakiin inteena badan inaan hore u soconaan rabnaa ma joogi karno anigana sideedaba hadda korna waa idin sheegay haddana weli waa ogola wax kasta oo meeshii aan joogno aan ahayn aniga agteyda macnay kaliya walaxan dhageysan karo tanasul badan ka sameyn karo muxuu ahay aan ka hari karo waay haddii xataa oo laygula qabsado laakiin waa fadhiyaynaa meeshanadii yaan joogaynaa bartiis yaqaan bare uma korortaan ahaanaynaa afartii halaadoon qabi jirnaan qabaynaa hal shanaad saan u yeela lahayn ka fahmayno 10 hektar oo beerta aan fala jirnaan falanaynaa hektar 12aad ku dari mayno dee taasi waa hanyariduna waxay leedahay muxuu ahay nolol yari ay leedahay dowlad xoog la Soomaaliya oo macnala inay ka dhalatahay wada dheer oo dhiman oo qaadno shabaabka oo dalka ka xoreyno iyo waxa dowladnimada loo yaqaano oo aan dalka keenno constitution dhamaystirno xeerarka dimuqraadiyad dalkan waan ku celceliyaa waana aaminsanahay si oo qalbi aan u aaminsanahay dictatoriyad ka suurtagal ma aha maba ka imaan kartaan qaba aniga dadka qaarkiisna dictatoriyada ka wada baqaan dictator alla noqona hebelo baa dictator noqona haduu inta duu saas noqdo waa noqona haduu soo noqdo saan uu noqona kan hadii saan liira aniga dalkan waxaana daliil u ah waad aragteen walay aqbalay shalay xibna maxaan ku raadaayay 200 iyo intaas aho majority baarlamaanka cod isiisa sharci doortay waa iska sii fadhina meesha mugo termkii dhamaada hadaan dhaho intii shalay taageersanado dhan wareer naga dhaaf odaga iska sii jooga idhay mayso wana raalli ah naga horle xal dhaa ama aad muxuu raadso sharciyad raadsan la idhaa muugiye war odaga laga leexdaa iska sii si kastoo wanaag kasta xataa u sameeyo la idhay ma war odagu waa wanaagsanay labadan birina wax fiican uu sameeyay hal bal iska sii jooga hal dhaafo ma laba dhaay odagu sharciyad kii igu cod macaan oo igu luqad fiican oo sharciyad doonto asoo qaato sharciyad hadii kala daan dhaafo sidaas daradeed aniga ma arko sabab aan dictatoriyad iyo in dictator la noqonayo muxuu ahay looga baqo marka waxaan rabnaa baqdinta intaan yareyno hore aan u socono dalka dawlad aan u dhisno dawlad si aan ugu dhisnada dawladda waa qaanuunka laga soo bilaabo dastuurka ilaa xeerka ciqaabta iyo kan taraafikada oo jidkaad u gaftay lagugu ganaaxayo laga soo gaaro ugu hooseeyo waa qaanuun waxaasoo dhan qaarna waa noo dhisan yihiin qaarna waa naga maqan yihiin kuwa noo dhisana dhaqangelin iyo dhabaynay naga rabaan kuwa naga maqan sameeyna rabaan xildhibaanadeeniyo waqtigu waa nagu yaryahay waqti badan ma haysano aniga isku waqtiyaan nahay waxba isma dheerin waqtigu naga wada dhaca nolol inaan ku gaarayno waqtigu taariikhda naga dhacaya ma ogin inaan soo noqonaynana ma ogin haddaan joognaahan ognahay maantaan joognaa oon soo taagannahay oon caafimaad qabnaa maantaan noolnahan wax samey karna berri fursadda maanta aan haysan inaan haysanayno ma hubno fursaddu yaanay dhayal nagu dhaafin marka dheeldheeliyana nagu dhaafin cayaariya nagu dhaafin wax yar yaroo macno lahayn iyo hebel iska riix iyo hebel maxaan ku idhahdaa saan yar iyo yaanay nagu dhaafin waxa aan codsanayaa waxay tahay dowlad dhisidda waqtina inaan gelino dulqaadna inaan ka muujino waqtina aan gelino inaan iska baxno oon caruurteena la joogno
وأن فسح وضع الماء وأن مالك لا مقالوين كلا دلحيس أنجين إن أن والد يورال أن وايها أن أرك أن صوب وقانون أتقنو إن أن محانك وحادي أدو قرحون وفي عنتها لكن ضد بدن أو ماشان فرديو أنو أن قرني صاحبها آذان أوجع عروتو دي إن أنا إسلسو كورين حتى صدني أفرتي سنة يصدني جرجركي أن دبعتو كجرني ضد بدن أن قرنيا أو أنت عروتو دي أركان أي ترسنتها الحمد لله ولبا waxaan ogahay dadkaasi qaar badan waa aqaan caruurtoodii kuwa guuleysto oo socdo oo maxaan ku raadayay fiican ay noqdeen kuwa oo saaqiday oo duurka ka baxay oo macna beela ma noqonin laana waxaad uga maqan tahay ilaahay waa og yahay inaad tarbiyaysid la joogtid ag fadhidid way san tahay laakiin sababta iyo kooska qadiyada uga maqan tahay ilaahay waa og yahay ilaahay abaal gud uga dhigay ilmahaga inaanay كافس هادين أيكو ماقا أيغو أكفى فردية إلمه اللي جوغا أي إلمه أي كفر بحسدين أيغو لا عراريو دور ولا عراريو كلا عراري دباتو أي كفر بحسدين وناك مركا كشق يسيد إلهي وقضال عنيا وناك أنبو إلهي نكونه والقلب جينا أن سمين عنفقي علاد قلب جينا أن كسارن أن سقوق عنه أن إسأقبلن أن إسقادن وقتي waxaan warkaas ugu soo celcelinayo waxaa la yiri ama afeef hore lahaw ama adkaysi daba lahaw afeef ugu yaabaan berri waa idinka maqanayo wafdi idin joogaa la yiri oo weyn oo macna laho oo soo dhaweynaysaa baarlamaanka ku imaadaan berri daba jimca miya maya khamiista haday tahay hataa khamiista special meeting waa la ii sameynaya أنا وعطسي عن الإيمانة قوان كذلك أسكله ورقدي لو سوق قرنا أو دستور هذه وقدون كانوا وسوق جرسين هذه الليلة وعارف مركا ما أنت أساسي أففنا وين أو محمد أو ينصو هذه الليلة إن لا أقبل دارنا ورجينا لأنه ولقي بمحوها البرلمان كنت نحسه كمسوه قومين markaan cod iyo doorasho idinka rabay idinkumaana soo hoggoomin intii kale ajandayaashii dawladnimada aan idinla imaanayn idinkuma hoggoomin kanna waa midka ugu muhiimsanaayay ilaahay idinkiisa baarlamaanka ku hoggoomi maayo aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waa idinkaga mahad celinayaa mar kale inaan isku nimida caawa socializationkii iyo isalaamidii rag badan oo labadii sano jarjarkii iyo gabdho badan oo labadii sano jarjarkii aan meeshan joogna anaan aragan caawa arkay هو أن هل مر أركي أن عاو مر لباتك أرك هو أن مر سدعات كأد هو أن أسكب بدنين واكل الله لحن وعاكلون ربا أنا وفرصة كفائدة سنة إن أمهات إليو بارلمانك فدرال كمهات إليو تسكسكو مدحونياش الدولة قبل يده مدحونياش أن الجوجا إيه كون نجم مقامبا دمان تود أنا وأوذ مهات إلينا لأن dhammaantoodba kii xataa maanta naga maqan maalmo badan oo nala joogay oo wax badan oo nala aqbalay wax badan oo nala ansixiyay wax badan oo nala meel mariyay niman maalin aan wax nala meel madarin kamid ma ah waxa dadkan reer koonfurta u badan wali waxay ku baahan amal walaal amanka u galaa arabkaana looga bixiyaa macnaheedu waxa walaalka haduu xanaaqo xaq uu fadhiisanaya muxuu ahaay waa isbaxana arabka looga bixiyaan waxa waa la hadlaa walaalehen waa la hadleena awalna waa la hadalnay haddana waa la hadleena waa daba joogeena haday naga ogolaadaan inaan u tagno waa u safreena waa u tageena haday naga ogolaadaan inay noo yimaadaan waa baryayna inay noo yimaadaan dib iyo colaad iyo xumaan iyo xaggan ka soo jirtay ma jirto ayaguna dad mas'uuliyiin oo sharaf iyo karaamo leh waaye go'aano masiir oo dalkan hore uga dhaqan galanay waxbay ka gaareen ka go'aamiyeen waxna way ka meel mariyeen haddii hadda xoogaa yar ay jiraan waxaasi waa wax bixi doono mustaqbalka dhow haddii alla yidhaah ilaahay idankiis wax kastoon qaadaynane waxay ku farxaan raallina ay ka noqdaan ay noqonayaane wax ay ka qoomameeyaan ma noqon doonaan waa u howl haynaa haddii alla yidhaah aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantihiin